أبراهيم كوينا هو شكرا هاي كوينا هو سكتشر كم أقدر ماشي حسن فوق الشوط والله قف شكرا هذا والله قواب يا حمسك عدكينه عدكينه أنا عدكينه هلو عدكينه أبرونا أنا أشتري ضعيفة أبردوس ده حاجة نوجه أبردوس أنا قد بيسوي أنا قد بيسوي ما يسوي يا فاس سعد مالك أبغى هاي اللي كير من عاد أبردوس هاي اللوجو يكون فريق عريان أبردوس خبرك اللي قبضت لهم ورد بالعين خبرك سومت حاجه ابرسوق ما يسكس لو نفسي لو لبنان بردا كان مكان ايه كان سكس ابا سكس سعد مالك انا عندي كان فيديو شكرا مش ده لبنان عادو صح أبردي وصباح أدوار بسوبر أبردي وصباح أجيب لك الأسعار أبردي وصباح والله ما قاعد كريت وصباح خمسة دانا ده والله سيدة بلا سيدة والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa halkan day la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1441 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بان ما هنقيا waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe intaan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi أقبلات أو كأقبلي إن الحرية دي هلا وحن كلو مهد علينا يو دينا يهيئات عد كست أو كقيب قاضتي إن ما أنت حرية دي هلا أو كحما إن حدناضه أو دعينا أو كتامي أو رتينا يمر أو على العالم كتشوجا وأن مقعدوا ضلاقون وخيري ويني رتيني oo garab istaag weynii muujintan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa
waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaya oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty منظمة العفو الدولية iyadana waan u mahadcelinaya hay'adda Human Rights Watch iyadana waan u mahadcelinaya baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan u mahadcelinaya jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintu waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dadyo badan oo aan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa mar kasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga mar kasta muxuu ahaayay idinla wadaagay ma ilaawi doono haweeney way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidayo ma doonayo maanta inaan hebel idaado haddaan hebel ku bilaabo hebelladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar waan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyada xidhnayd anigu maan xidhnayd iyaday baa xidhnayd waxaweye baa-ay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxaweeye garabkayga ahayd ehelkayga waxaweeye sida ay igu samreenna jazahum allahu khayr maanta anigu halkan aargoosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxaweeye maanta waxaweeye waxay waad ogtihiin yani marxaladda aynu ku jirno marxaladda aynu marayno oo marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha isqabtay waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabtay inaynu dog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii ku yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu sheelka ka soo baxay walaaladii ayaa aniguna leeyahay waxaweeye shaydaan ayuu bayna dhex galay wax kale ma jiraan waxaweeye maanta waxaweeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waan ka nimid bal xagga hore aynu muxuuha u soconna innagoo istoosinayna innagoo isla talinayna innagoo aan aamusayna laakiin waxaweeye wixii hore way tagay waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuuhaye aynu halkaa ku soo koobno laga yaaba ina su-aalay ku taagan yihiin su-aalihii ku taagnaana inta badan muxuuhaye waa ka jawaab muxuuhaye waxaweeye go-anaag mooyaane wax kale oo inaga baxaa maanta ma jiro markaa ma ku qanacaysa markayna ka qaataan